maxaa baadacado oo la yaqaano oo aan ognahay meesha ay degto iyo eeylo iska hor keenay maxaase deegaanka siibay ka dhacay su'aalahaas ayaan rabaa inaan falanqeyn yar sameeyo anigoon kugu dheereenin haddaad igu cusub tahay soo dhawow baadacado ewel horeba deegaanka siibay waxa ay ku imaaday qaab qaxooti ah waxa aan laga keenay iyadoo qaxooti ku ah ama iyadoo yani barakac ku ah wadada la yiraahdo wada American ama jid American la yiraahdo ama wadadii Americanka la yiraahdo ayagoo qaxooti ku ah ay siibay soo wada deegaanka siibayna keentay waa wax la yaqaano macluumaad taariikh oo la wada ogyahay sidoo kale iyadoo buq aqable ama deegaanka la yiraahdo ama meesha la yiraahdo email iyadoo barakac ku ahna reer ayaa soo waday deegaankii siibay keenay ama deegaanka siibay ila keenay dagaalka xaqeeyo ku dhacay eelana waa ay deganeed halkaas si maxaa ahaay baadacadana waa ay deganeed halkaas maxaa keenay dagaal dhimasho iyo dhaawac iyo dhul iyo guryo la gubo maxaa dhalin kara arintaas waxa ay ku timid baadacado oo laba su'aal isweydiisay sidee eeylo hub ku lahaan kartaa sidee eeylo dhulkan ku lahaan kartaa saami siyaasadeed ahaan markii la yiraahdo baadacada halkaas waa ay ku dulmsan tahay talana kuma hayso waayo buulburtana tala fiican kuma haysato jalalaqsina tala fiican kama haysato baladweynana tala fiican kama haysato baadacada waxay u baahatay marka meel istiraatiiji ah ay ka ruqaansato oo ay dagaal ka gali karto ama ay maxuu ahaa dhul ay lahaan karto ku faani karto ama dhulkaas aan leenahay dhigi karto eeladii halkaas joogtin waa ay diiday dhulkan waa dhul eelo siibayna ayaa la yiraahdaa afraxdo maxaa tuura ayaan halkaas u badan markii sidaas ay dhacday reer baadacado weerar ayay qaadeen mootagaari ama mootadan saddex lugleyda ee alaabaha lagu daldashto oo ay saarayeen rag iyo dumar isu jira oo aan ku qiyaasnay 6 qofood iyo 5 qofood ayay xabado oodka u fureen waxa ku dhimatay hal maamo halkaas ku geeriyootay Allah u naxariisto sidoo kale 3 qof ama 4 qof kalena waa ay dhaawaceen mootadiina inay gubeen ayaa la sheegay intaas kadib reer eeylo oo ka duulaya dilka maama raxiima cabdi caalim iyo sidoo kale dhalinyaradii wiilashii gabdhaha soo jiray halkaas ku dhintay ayaguna weerar ayay qaadeen subaxdiina waxa ay dileen ay galaafteen 3 galabtiina waxay galaafteen 2 xitaa waxa la arkayay rag kamid ah dhalinyarada baadacado oo juqda cambaha iyo liinta dhexdooda ka aadaarayo rasaasto ay ka qabatay midadkoodan la sheegay dagaal eeylo saa loo galaa yaabaana loogu baxaa horaan u dhahnay waa sidee lagu gubo marka deegaanka baadacado iyadoo dhimashada raggii ka geeriyooday ka ololayso يعني سومالي حتى هذا أنت أوصل بقبها للأيو ديف قبها له iyadoo deegaankii la keenay dheef ku qabtay ganacsi ka sameysay mooto la saarnaana in weerarta rasaas ku hubisay 4 qof dhaawacday dadna ku dishay ayay baadacado markii la weeraro la dilay dilkeeda xanuun qabtay xanuunkii dadkii ay weerartay xanuunku ma qaban ka warab la yaab maahan waab iyo baadacado isla jira tuuladii la gubay meeqa guri la gubay ku dhawaad 20 guri 18 guri ilaa iyo 20 guri meel wax lagu yani wax baa la gubay 20 aylo inkastoo 20 kaas guri laga gubay marnaba suuragal uma ahan in ay ka guurto deegaanka siibay waayo waa dhulkii awooyaashooda dhulka dheeftooda waa dhul ay ayagu leeyihiin baadacadana halka baadacadooda ay iska shubeen buurweyn la yaab marka waxyaabaha la yaab kale aan ku sheegaya marka deegaanka reer aylo mar walba roontay ku jiraan sida la sheegay deegaankii way difaacaan roontay ku jiraan oo dagaalamayaan waxyaabaha inaan isqabadsiino mudan ayaa ah marka haddii baadacada iyo shabaab aysan garab isiinin odayaasha aylo ee sagaalka oday maxaa loo xirxiray dhalinyarada baadacada ama odayaasha baadacada wax la xiray maar macnaha taas waxay cadeynaysaa cabdibilaha baadacado ee ka baxa siibay ama ka baxa deegaanada waxa uu toos u tagaa lagu leeyahay buurweyn fiiriya hadda baadacadada buurweyn isku shubtay ay tuursan ay joogaan ee qaxooti ku yihiin buurweyn yaa haysto ma dawladda haysto mise shabaab haysto buurweyn dadka haysto waa loo geeyaa shabaab cilaaqada ka dhaxaysa shabaab iyo shabaabka buurweyn jooga iyo baadacada maxay tahay hadii la soo qaxiyay sooma ahayn islaax bayna naas in la kala dhigo midkan dagaalkaana dagaal aylo lala galana qasaare mooyee faa'iido ma keen waa aragnay aylo iyo gaaljacel faa'iido lagama dhaxlin gaaljacel uu ku qasaaray waa halka ay hadda ay u nacab yihiin heesaha aylo la qaadayo xitaa ay nacaan dhalinyaro aylo hadlaysa xitaa way nacaan halka cunsuri iyo cuqubo oo gashay qabiila keenay waxas qabaliya keentay annaga dalkeenii Soomaaliyeed maxaa burburinaa qabiila burburinaa qabaliya jaahiliya cunsuriya ya
أنا جوجوسي قلوبنا نجدكتي قلبينا نجوا هذا الشيء وأنا نقول من أمريكا قلبي محو هاي وحنا نقول كأنه وأنا أقول منا دحش أبوي وأنا أقول منا دحش أبوي دروايد عناية كما أمناية وكيدناية مغلسة دحش أبوي دروايد عناية كما أمناية وكيدناية وان ديداي بعد عد سيباي إسكملهن سيباي وحاسكله إيلا سيباي يا مغلجن وأنا لو شاكين جري أنا غير دول إيلا سيباي إنويا سلام كدمانت أنا إيجا دادعينه مايا وكديدايا deegaanka iskuula noolaano nabad ku noolow deegaanka ana iskale waan isla wada leenahay ardullahi waaye wa ardullahi waas'atun soomaa wa ardullahi weeyaan dhul ilaahay weeye aan ku wada noolaano meesha shalay aan ku siin dhiso ku dhaqan ku noolow waa diidamaho maka yeelay ana sarreynay ana talinay maka yeelay Soomaali ma tirada sinaantaada ninkii diida sarreyntiisa iska diida reer ay gumaysi wiligeed ma aqbalin hadana ma aqbalayso aylo cadaabsi ma aqbalin ma aqbalayso aylo sideedaba gumaysi ma qaadato aylo meel kasto joogto waa aylo macnaheedu aylo meel kasto joogto waa aylo inta rafaad la maraya dhalinyaradan dhimatay dadkan dhimanaya maxay ku dhimanayaan waay ay u dhimanayaan qabaliye jaahiliye Soomaa deegaankiina hadii aylo idin soo iska noolaatiin baad cad waa ogaay video iyo Ibrahim baa dhulkaan yarka meelaha joogtiin meel baad cad ay leedahay istaraatiiji ay ka duuli karto ma jirtaa buulburtay ay ka duuli kartaa jowhar ka duuli kartaa buur ay ka duuli kartaa meel walba ka duuli kartaa ay la garan ogyahay laakiin baadacado nabad baa raadiya nabad la tuutuugan nabad ma noqoto reer ilo nabad la tuutuugan nabad ma noqoto haddii sagaalkaas oday ay shabaab soo deyn waayaan ee deegaankaas xal laga heli waayo nabad la tuutuugan nabad ma noqoto baadacado iska dhiciya warka meesha soo ku dhan yahay